السلام عليكم. halkani waa Duruus Media. Subscribe haddii aadan hore u dhihin. Waa maxay kalsoonida? Kalsoonidu waa is-aaminaad ka dhaxaysa laba qof iyo wixii ka badan. Kalsoonidu waa tiirka ugu awoodda badan oo ka dambeeya jiritaanka xiriir walba. Kalsoonidu waxay ku koobacdaa iska warqab joogto ah iyo isku danqasho. Kalsoonidu waa shayga kaliya ee qofka ku kalifa inuu nafsadiisa u hibeeyo ruux kale. haddii ay kalsoonidu sidaas tahay maxaa burburiya kalsoonida? Kalsoonida shayga ugu weyn ee buriya waa shakiga. Kalsooni darrada waxay baabi'isaa wax walba oo udubdhaxaad u ah xiriirkaas. Ma doonaysaa inaad dhisto kalsooni ama abuurto kalsooni ama aad samayso kalsooni? La sheekayso qofka aad danaynayso waqti walba oo ay macquul tahay. qodobkan wuxuu kuu sahlayaa inaad wax badan ka ogaato shakhsiyadda qofka aad danaynayso. la danqo qofka aad danaynayso wuxuu kuu sahlayaa inaad degto qalbiga qofka aad danaynayso. sida inaad la murugooto xilliyada uu dhibka ku sugan yahay, inaad dareensiiso inaad wax walba la qaybsanayso. xor ka dhig qofka wuxuu ka hadlayaa inaad qofka dareensiiso inuu noloshiisa xor u yahay, uu la hadli karo qofkuu doono, balse uu yahay shakhsi aad nolosha u hibaysay. qodobkaani dadka badanaa kuma baraarugsana, balse waa qodobka ugu muhiimsan dhammaan qodobada aan hore u soo sheegnay. marka aad qof u taxgeliso waxyaabaha u gaarka ah ee noloshiisa khuseeya, wuxuu garan doonaa waajibaadka ka saaran xiriirka uu kula leeyahay. wuxuu kaa ilaalin doonaa wax walba oo lid ku ah xiriirka idinka dhaxeeya. sidaan hore u soo sheegnay, shakiga inuu burburinayo kalsoonida. qodobkan haddaad samayso waxaa suurtagal ah kalsoonida idinka dhaxaysa adiga iyo qofka aad danaynayso inay sii kororto. fadlan sheer dhaha si aad ula wadaagto asxaabtaada. Subscribe dhaha kanaalka. Wassalaamu calaykum.